dowladda hoose ee South Africa ayaa mar kale sidii caadadooda ahaydba weerar xooggan oo si lama filaan ah kusoo qaaday ganacsatada Soomaaliyeed kadib markii ay booliska oo ay weheliyaan madax sare oo ka socotay dowladda hoose ee South Africa oo ay isku gadaameen dhismayaal Soomaalida ku ganacsato oo ku yiilay xaafadda Bialval ee magaalada Cape Town. dukaamadii ku yiilay dhismayaashaasi ayaa waxaa laga ururiyay alaabo lagu sheegay in ay ahaayeen kuwo sharci darro ah oo ay ka mid ahaayeen qalabka isboortiga iyo alaabo kale oo aad u tiro badan oo ilaa iyo hadda qiimahooda lasoo shaacin. waaxda cashuur qaadista oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano SARS ayaa waxa ay xusulduub ugu jirtaa sidii ay ku ciribtiri lahayd ganacsiga aan sharciyeysnayn iyo alaabta lagu soo shaabadeeyay magacyo aan ahayn shirkadihii soo sameeyay si suuq looga helo. qaar ka mid ah dadkaas ayaa TV-ga Universal u xaqiijiyay in ay ka maqan tahay hanti aad u fara badan oo isugu jirta bagaash, dhar iyo alaabaha dumarka isku qurxiyaan, kuwaasi oo ay sheegeen in ay hanti aad u fara badan ugu fadhiyaan. dhacdadani ma aha hantii ugu horeysay ee lagu qaato hantida ganacsatada Soomaaliyeed, balse waxaa la dhihi karaa waa tii ugu ballaarneed oo hantida dadkaasi lagu qaato. tani ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli Soomaalida dukaamadooda soo camirayaan si ay ugu diyaar garoobaan cayaaraha adduunka oo bisha fooda inagu soo haysa 11keeda ka furmi doono wadankan Koonfur Afrika. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.